waxa aan la wadaagi karno bulshada guud ahaanna waxa weeye inay u diyaar garoobaan doorashooyinkii axsaabtii siyaasaduna ay ka go'an tahay inay hawshaan hore u dhaqaajiyaan doorkoodiina ka qaataan bulshaduna waa qaybta ugu muhiimsan oo barnaamijkan iska leh oo iyaga loo shaqaynayo sida guddigu aaminsan yahay amaba ay tahayba marka iyaguna inay dhinacooda diyaargarow ka muujiyaan doorkii ay ku lahaayeen iyo ka mid ahaanshihii ay ka mid ahaayeen xisbiyada kala duwanna ay aada ugu baraarugsanaadaan bismillaah maantay waxaan halkan kulan ku wada yeelanay xisbiyada siyaasadda puntland oo ahaa kulankii ugu horeeyey ee guddiga doorashooyinka puntland iyo xisbiyada siyaasaddu ay ku wada yeeshaan kulanku wuxuu ahaa kulan caadi ah oo kulamadii caadiga ahaa oo inta badan wada shaqaynta ka dhexaysay guddiga doorashooyinka iyo axsaabta siyaasadda arrimihii aan uga wada hadalnayna waxay ahaayeen maadaama shaqooyin baaxad lihii ay ina hor yaallaan oo ay ka mid tahay shaqadii doorashooyinka hadday tahay tii madaxtooyada iyo golaha wakiilada axsaabta siyaasadduna ay yihiin dhinacyada ugu muhiimsan ee hawsha tan ay qaybta ka ah in aan wada tashi ka yeelanno dhegaysanno talooyinkooda ku aadan arrimaha shaqooyinka guddiga qaban doono kala tashanno arrimaha shuruucda la xiriira doorashooyinka oo hadda guddigu draftigii ugu horreeyey gacanta ku hayo ka bacdina wada tashi lala samayn doono sidoo kale waxaa ka mid ah arrimaha aan ka wada hadalnay u diyaargarowga iyaga dhinacooda ah maadaama ay ururo siyaasadeed awal ahaayeen haatanna xisbiya siyaasadeed ee rasmiya oo dalku leeyahay ay noqdeen inay u diyaargaroobaan oo iyaga laftirkoodu ay golayaashoodii hadday tahay golihii dhexe fulinta iyo goloweynahoodiiba ay dib boorka uga jafaan sida shuruucdoodu ay qabto ama xeerarka u dhigan iyo sidoo kale shuruucdii iyo xeerarkii hore inay iyadana updating ku sameeyaan annaguna arrimahaas inaan ku dabagalno oo wixii talooyin ku aadan aanu ka siino guud ahaan shirkeennu intaasuu ku saabsanaa runtii iswaraysi dheer kadib talooyinkii aan dhegaysanay dhinacooda ka socday oo dhammaan arrimaha ajanduhu ku saabsanaa ama qodobada aanu ka wada hadlaynay aanu soo hordhignay talooyinka ku aadanaa aanu dhegaysanay guul ayaa shirku ku soo dhammaaday halkaas in laga amba qaado oo shaqooyinka yaal oo dhan aanu isla kaashanno ayaanan maaragta isla garanay guud ahaan waa shir caadi ah oo inta badan horey ay u yeelan jireen ururadii siyaasadda iyo guddiga hore doorashooyinka guddiga kumeel gaarka ee doorashooyinka puntland kii un baanu halkii kasii wadnay iyo guud ahaan xaaladda hadda jirta oo ah shaqooyinka haddana horyaal oo doorashooyinka waqtigoodii hadda uuna kusoo fool leeyahay iyo go-aanada guddigu qaadan doono oo ay ugu horeyso arrinta soo saarista jadwalka doorashada arrimahaas oo dhan ayaan ka wada tashanaynay guud ahaanna waxaanu isla qaadanay in si joogtaa wada shaqaynta loo xoojiyo si joogtaana loo wada tashado dhammaanna ay iska kaashadaan shaqadan iyo hawshan baaxadda leh dhinacyada ay qusayso oo ugu horeeya guddiga doorashooyinka puntland oo hawsha hogaaminaya axsaabta siyaasadda oo qeybta ugu muhiimsan ah iyo dowladda oo laga rabo ka goonaanshaheedii ama facilitationkii howlahan lagu fududayn lahaa si ay u qabsoomaan marka guud ahaan shirkeennu intaas ku saabsanaa waxa aan la wadaagi karno bulshada guud ahaanna waxa weeye inay u diyaar garoobaan doorashooyinkii axsaabtii siyaasadduna ay ka go'an tahay inay hawshaan hore u dhaqaajiyaan doorkoodiina ka qaataan bulshaduna waa qaybta ugu muhiimsan oo barnaamijkan iska leh oo iyaga loo shaqaynayo sida guddigu aaminsan yahay amaba ay tahayba marka iyaguna inay dhinacooda diyaargarow ka muujiyaan doorkii ay ku lahaayeen iyo ka mid ahaanshihii ay ka mid ahaayeen xisbiyada kala duwanna ay aada ugu baraarugsanaadaan doorashadii golayaasha deegaanka doorasho ka muhiimsan waaye doorashada tani dhinac marka la fiiriyo baaxadda ay leedahay iyo hoggaanka lagu dooranayaba hadday tahay golaha wakiilada
oo baarlamaanka ciddii ku matalaysay ay tahay iyo hadday tahay madaxtooyadii oo madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkiiba la dooran doono. marka waa rajaynayaa ama waaba aaminsanahayba wacyiga iyo baraaruga iyo fahamka bulshada reer Puntland inuu aada u sarreeyo sidii ay uga soo qayb qaateen doorashadii golaha deegaanka iyo rabitaanka ay danaynayaan inay madaxdooda ayagu doortaan oo xaqoodaas ay xaqiijiyaan. aad iyo aad baad u mahadsantihiin.